raadka iyo musiibada macsiyada iyo dembigu ku leeyahay qofka iyo ummadaba ama dalka iyo dadkaba. ayaamahan u dambeeyay waxaa aada loo celcelinayaa oo warbaahinta inagu wareeriyey inuu gaaladii waalay oo nafta u keenay virus yar oo ilima qabatay ah oo la yidhaha corona, oo ka soo bilaabmay nimanka mulxidiinta ah ee aan ilaahay rumaysnayn subxaanahu wa tacaala China. fayraskaa yar ee ilaahay iyaga uu ku salliday waxaynu odhan karaynaa waa abaalmarin ilaahay uu ku abaalmariyey subxaanahu wa tacaala. gaalnimada ay sameeyeen aanay ilaahayba rumaysnayn iyo iyagoo cadaabay oo ciqaabay ummadda kooban ee muslimka ku dhex nool. caalamka meelaha ugu dhib badan ee muslimka lagu dhibaateeyo ayay China ku jirtaa. nimanka idhaa xorriyad baanu ka hadalnaa iyo dimuqraadiyadda gaaladuna reer galbeedkuna way barakeeyaan. wax ka hadlaya arki maysa. xijaabka lagu haystaa, salaada lagu haystaa, inay jinsiyad yeeshaan baa lagu haystaa, dalkaba ka mid noqdaan, wax diina inay yeeshaan. xeriyay ku xaraysan ummado dhan baa xeriya ku xaraysan oo maxaabiis muslimnimada ay leeyihiin daraaddeed. jawaabtii maxay noqotay? inuu iyagiina ilaahay xero ku xareeyey. xeradii ay muslimka ku xareeyeen jawaabteedii waxay noqotay iyagii baa ilaahay xero ku xareeyey. si dhaqsa aynu arkaynaba wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu, ilaahay colkiisa isagunbaa yaqaana. kullu haadihi almawjuudaati junuudun lahu, waxalla waxaan caalamka ka jiraa waa colkii ilaahay. qoladu dooruu ilaahay soo istaaraya, mid la arkaya mid aan la arkaynba. waxaa maalin dhoweydoon dheerayn intaanu cudurkaasi bilaabmin uu ku faanayay ninka China ka madaxi awoodda uu leeyahay. awoodda China adduunkan cidi isma hortaagi karta weligoodba ha wadaan. ta dhaqaale weliba dhaqaalaha ayaa weliba sii calaamadinayaa annaga hagayna buhi adduunyada. haddana waxaa dhacday in loogu yaro gabaday dhaqaalihiisii oo dabeedna lasii buunbuuniyey bahalkan. arrin dhaweyd taqriir uu soo saaray qaybta dawaariga ama emergency-ga nin dictor ahoo jooga sacuudi oo muslin ah, aramco meeshan la yidhaha shidaalka ee sacuudiga, buunbuunis baa ku jira buhi bahalka. China lagaga faa'iidaysanaya way macnaheedu. oo qaar badan oo ka dil badnaabaa, ka dhimasho badnaabaa jiray. 10% ama 10% meelahaasaa ku dhinta baa la yidhi. laakiin haddana waa laga sii faa'iidaysanayaa ila gaaladu iyana way sayaaneen. taasina waa arrin saddexaad. gaalnimadiisa muslimkuu dhibay, kibirkiiyo xoogguu sheegtay. in yar baa lagu kala yaacay oo dadkii joogayba waynaga safri la dadkeenniina way soo bixi laayeen. kuwii halkana safarkii waa laga hakaray. jawaabaha ilaahay uu bixinaya subxaanahu wa tacaala dhaqsaha ayaynu arkaynaa ee u jawaabaya kuwa cadowga ah. waxaa qur-aanka iyo xadiidkuba ayna barayaan mar kasta oo dadku dembiga ay badsadaan in ciqaabta alla badanayso. dembiga noocyadiisa kala duwan mid waliba jawaab buu leeyahy. maxaad ilaahay kula yaabaysaad kaga hor iman kartaa? waxaynu ogsoonnahay dadka madaxda maamula, cidda ka tala qaadata ee u jajaban ee u heelan mansab iyo maalba way u huraan. midkaasi waa innagaba yidhaha, waa taageerayaasheenna. kursigana ha la siiyo, lacagtana ha la siiyo, ha la ixtiraamo ayay yidhahdaan. waa addoon yaroo indhala mida oo ammaanahaya ayaa sidaa u dhaqmaya. maxaad u maraysa ilaahay weynaa iska keen lahaa subxaanahu wa tacaala. walilaahi almathalu laclaa. ilaahay baa tilmaanta u weyne u wanaagsan leh. addoonku abuuray ee u arsaaqay ee imkaaniyaad iyo arrimo wanaagsan uu isugu hagaajiyey oo edabdaradan kala hor yimi oo yidhi maba jirtidba, mana awoodid, imanaad siinin. oo nicmadii ilaahay diiday oo dafiray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kala hor yimid dhoola tuso. maxaad u malaynaysaa? in markaa waxyaabo badan adduunka lagu tuso wuu istaahilaa, iyadoo weliba ilaahay naxariistiisa ballaaran ee uu doonayo inuu fursad siiyo uu markaa si uu soo noqdo.
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون عذاب كوين آخرين تان لقارب ولهاي كوير يربان كده ياك دad kan adduunyada ku nool waliba si aanu halaagan mahay waa si ay u soo noqdaan bulahay idan marka waxa aynu arkayna ku dhacaya waa dubay karbaash ilaahay uu ku dhufanayo gaalka kibray karbaash way nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu inoogu sheegay xadiid saxiix ah oo asxaabtu ay nooga soo warinayaan ridwaanullaahi calayhim waxa cudurradan adduunyada dhacaya inay yihiin ciqaab ilaahay oo caasinimada kaga jawaabaya dadku ay caasi noqdeen wuxuu nabigu yiri yaa macshar almuhaajiriin khamsun idha ibtuliitum bihinna wa a'uudu billahi an tudrikuuhun asxaabtii muhaajiriinta buu ku halqabsaday oo nabigu waxa yiri shan arrimood marka la idinku salido ilaahay baa ka magan galay inuu idinku salidee waxa ay noqonayaan jawaabahoodu sida soo socda ta horeysa waxa la yiraahdo faaxishadu qolo kuma dhex faafto oo ma muujistaan illa fasha fihim ad-da'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw faaxishadu waa sinada iyo dadkoo iswaxeeya iyagoo wax meheraba isu haynin oo taasina ay iskaba badbadato oo meelaha ka bidhaamayso laga arkayo oo dadkiiba ka xishoon waayeen haday taasi dhacdo cudurruun baa ilaahay uu ku salidaa uu kamid yahay daacuunku iyo cudurro la garanba waayaba oo aslaaftoodii ama ummadahoodii hore aanay lahayn bal inta cudurro imika sinadii ka dhalatee sinadii markii gaaladu ay xayeysiiyeen cudurkii innagana wayna soo gaadhay markaasaa daayartii qaar waxay gaadheen inay yidhaahdaan wiilashiiyo gabdhaha markuu inanta muslaxanayo waynu iska wadi haddaad uur yeelato anaaba kugu qaadan oo dee odayaashii umaan soo diri doonaayo ku qaatuunbaa la odhan uurkan inantan uuraysee waa dhaqankeenii soomaha xumaa waxaad arkaysaa mararka qaarkood magaalada hareeraheedoo tagaasi yaryar baa wada taagan waa meel cidlo ah wiil iyo gabadh baa kasoo boodaya haddii la isdul taago markaa cudurrada aidsku uu ka mid yahaan hore u jirin abaalmarin weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka edabta daran uu ku abaalmarinaya siduu rasuulku caddaynayo xigmaawii ilaahay inoo soo diray arrinta labaad walam yanqusu lmikyaala waalmiisaan ilaa ukhiduu bisiniin wa shiddati lma'uuna wa jawri sultaani calayhim dadku hadday khalkhal ku sameeyaan dhaqaalaha oo tujaartu ay noqdaan qaar bila ammaano ah oo toodu unay u daran tahay oon tu ummadeen eegaynin oo shayga tiradiisa iyo tayadiisa ay qaldaan dawada cunnada shidaalka dharka wax walba tiradiisa iyo tayadiisa ayay khalkhal ku sameeyeen ilaahay wuxuu ku salidaa abaara buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyo duruuf adag iyo dad madaxa oo jaa'iriinahoo xaq dabooloo xaq darro ku wada oo midiba uu ka daran yahay ka kale waar kii horaaba dhaamay kan bal aan ku celino doorashada bal inaynu ka soo rayno way ka sii dartay waa ilaahay baa daba socda dadka subxaanahu wa tacaala ilaa alla wuxuu uhi ina rabbaka labilmirsaad ilaahay dadka dhabagal buu ugu jiraa iyagu iskama arkayaane isagu uu eegayaa kuurku ugu jiraa isagaa raadinayo daba socda marka dadkan ay la yaabsan yihiin ee dubbaha un la dhacaya dhibka ku ah ee u talinaya waa shaar iyaga loo tolay iyo waxay kasbadeen arrinta saddexaad waxa weeye hadday sekada bixin waayaan municu alqadra min assamaa ilaahayna roobkiisuu ka hakiyaa oo uu ka joojiyaa haddii aanay xoolaha mayeedhadu jirin ee dee aan dembi lahaynna loomaba shubeen buu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam arrinta afraad waxa weeye walam yanquduu cahd allahi wa cahda rasuulihi ilaa sallata allahu calayhim caduwan min gayrihim faakhaduu bacda maa fii aydiihim haddii ay dadkaasi ballanka ilaahay iyo rasuulka jebiyaan oy noqdaan wacadalla qabayaal kii madaxdii been buu sheegaya kii taajirkii been buu sheegaya ku kastoo bulshada ka midii sharciga ilaahay iyo wixii ballan laga qaaday ma fulinayo iyana isuma fulinayaan ilaahayna uma fulinayaan rasuulkana uma fulinayaan ballan la-aan dadku meel loogu soo hagaaga male
arrintaasi haddii ay dhacdana cadow baa ilaahay uu ku sallidaa buu nebigu sala allahu calayhi wasalam ka faramaroojiya waxaanay ilaahay iyo rasuulka u seegeen ayuu sida ka faramaroojinayaan arrinta shanaad waxa weeye wamaa lam taxkum a'imatun bikitaabi illaahi wayatakhayaruu mima anzala allahu ilaa jacala allahu ba'sahum baynahum hadday kitaabka ilaahay ku dhaqmi waayaan iyo waxyiga ilaahay uu soo dejiyey oo ikhtiyaarkooda ay ku qaadan waayaan ilaahay wuxuu ku sallidaa cuqubo uga dhigaa dhexdoodu isku sallidaa qabaa'ilkiibaa isdilaya kooxiibaa isdilaya dowladii yaryaraha xadka lahaa jaarkiibaa isdilaya shakhsiyaadkii saaxiibadii dad wada kala nooc ah oo madaxa isla dhacaya oo isba afgaran la ayuu waxay isku dilayaana la garan waayey ayaa meesha ka soo baxaysa laakiin nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam kitaabka ilaahay baa midaynta iyo naxariista iyo tawfiiqda iyo qalbi isu yimaada uu ku jiraa waxyiguu ku jiraa lishariicati samaaxa shareecadu waxay leedahay macaan iyo waafajina leh iyo ilaahay isku soo dhoweeya dadka marka laga amar qaato isaguna ummaddu isku ururiyaa